gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xukuumadda Siilaayo ku eedeeyay in guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ay ka hor istaageen in la dhaariyo sidoo kalena ay u diideen inay u baxaan tababarkii khuseeyay dhinaca hawlooga shaqo inay dalka dibadiisa ay uga baxaan wuxuuna xukuumadda iyo madaxda sare ugu baaqeen mudnaan gaar ah la siiyo in la dhiirigeliyo komishanka doorashooyinka inay u baxaan tababarkii ay ka soo qaadan lahaayeen dalka dibadiisa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa hadalkan ku sheegay inuu maanta ka hadlayay munaasabad ballaaran xisbiga wadani uu ku soo bandhigay siyaasiyiin aqoon-yahan iyo taageero kale oo mugle oo miisaan leh oo ku soo biray xisbigaasi wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo arintaasi arimo kale ka hadlayna waxa daladiisi kamid ah dhaarta iyo hawlgelinta komishanka doorashooyinka qaranka waxaad ka warhaysaan in golaha wakiilada 29 November guddiga doorashooyinka qaranka waxa ay hadii la dhaariyo sabtidii baan maasixnay maanta waa khamiis xukuumadda joojisay la dhaariyo xukuumadda joojisay in tababarkii u baxaan waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda iyo maxkamadda sareba mudnaanta ay hawshaasi leedahay in la siiyo in la dhaariyo in xilka lagu wareejiyo in tababarkii u baxaan in diiwaangelintii bilaabanto soo sidaa ma taageersaneen diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaan si ay u bilaabanto diiwaangelinta codbixiyayaashu oo ay ku xiran tahay inaynu doorashada qabanno waxaan u soo jeedinaynaa komishanka qaranka iyo bulshada caalamka ee Soomaaliland taageerta in la dedejiyo qabashada diiwaangelinta codbixiyayaasha si doorashooyinku inoogu qabsoomaan waqtigii loogu talagalay wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay kana shaqeynaya in la helo qaran Soomaaliland oo madax bannaan oo ka mid ah mujtamaca dawliga waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa inay xisaabta mucaaradka iyo shacbigaba ka uga waranto wada hadallada aynaan xog badan ka ogeyn ee wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee socda si ay ummaddu xoogaal ugu noqoto masiirkeeda waqti gaaban ay noqotay waxaan u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta iyo madaxda iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka iyo dhalinyarada ku soo biiray xisbiga wadani baan noo mahadnaqayaa waxaan leeyahay maadsantiin waxaan halkan ka cadaynayaa talooyinkii la soo jeediyey madaxdii halkaada ay soo jeedisay inuu xisbigu diyaar u yahay inuu fuliyo haddii Ilaahay ka dhigo waxaan mujtamaca Soomaaliland ugu baaqaynaa inaynu u wada halganno inaynu wadankeena xaaladda ku jiro iyo waxaynu samaysanayna aynu badbaadino isbedel kala wada keenno waxaan ku kalsoonahay shacbiga Soomaaliland ee faraha badan ee ku soo qulqulaya inuu suurto gelin karo in isbedelka taban ee doonayaan shacbigu inaynu dhalin karno guusha waynu wada dhalin karnaa soo sidaas maaha guusha waynu wada dhalin karnaa soo sidaas maaha waan doonaynaa doorashooyinku inay waqtigoodii noogu qabsoomaan insha Allah muddo kordhinta maxaa tirahdeen kastaba arintu haatee waxa maalmihii u dambeysay xisbiga mucaaradka wadani ku soo qulqulayay asiir miisaan culus ku leh dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo sidoo kalena xisbigan ay dhawaan ay ku biireen mas'uuliyiin kala duwan oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadda Soomaaliland uu hogaamiyo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo wa Maxamed Xasan Ismaaciil Sherbere telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Boorama